بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قدومي كحيانك لباد قولها وكيلة دولة بنتلان حلبانada golaha wakiilada dawladda Puntland wasiirada kala duwan ee halkan jooga ee dawladda Puntland gudoomiyaha gobolka Nugaal taliyaha booliska iyo saraakiisha kale ee booliska joogta howlwadeennada golaha iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay saxaafadda madashan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markoowaad waxaan ilaahay baa mahad iska leh mar labaad waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo soo dhaweynta aad maanta dib u soo noqoshada gurigeena Garowe caasimada Puntland aad noogu sameyseen dhamaantiin intiinaano mas'uuliyiin aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa dhamaantiin mudanayaal sharaf bayna runtii ii tahay si gaar ah aad iyo aad ugu mahadsantiin marka labaad ilaahay baa mahad iska leh in markaan tageynay dalka uu aad u kululaa oo abaar laga cabsi qabay ilaahay inuu raxmadii rabbi shubay ilaahay iyadoo inta ka sii badan inuu inoo shubona waan rajaynaynaa waxa kale oo farxad leh in halgankii aynu ku jiray isaguna uu meel guula marayo oo uu wali inoo socdo ilaahayna aan ka rajaynayno inuu si wanaagsan ku soo gabagabo wajigiisaas wajiyadiisa kale iyo dhulka inta dhimanna cadawga laga saaro aniga safar xoogaa qaatay baan ku maqnaa fasax iyo shaqaba isugu jiray oo aan soo aragnay dalalkaas adduunyada Soomaaliya danaysa iyo dad badan oo kale oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin ay ku jiraan madax ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada baarlamaanadooda iyo madaxweynayaashooda arrimaha iskaashiga iyo sidii dalka guud ahaan Soomaaliya oo mas'uuliyad inaga saarantahay qadiyaadkiisa loogu midoobi lahaa baan ka wada hadalay wixii tafaasiil dheeraadana insha Allah gaar baan isaga wareysan doonaa dhamaantiina aad iyo aad baad mahadsantihiin intaasaan rabaa inaan ku soo koobo si aan waqtiga mahadsantiin